kulanti waxaan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaada dhamaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuure leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkaan ilaahay awlaad baari ah hasiyo inta guurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ay baweyna hasiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena maal adduunyo oo isfileen in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee baa u dhaafaa rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku عزوما جنة الفردوس على حاسد وعلينا هي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحقودا بين يهود يغساره أو رب سبحانه وتعالى عن كجبرينا وحن لما أنت الله سبحانه وتعالى عن وديسنا أمد الصومال ميلو بيجوكتين ولا هي جرجار كيسي نسر كيسوسيو فرج خير قبل إلهي وفر أنت عن وصلنا إلهي سبحانه وتعالى حنونك هكذا القاضي عافمان إنها وجبدلو مدوين كي وجودن بيه مالك بالدجان هذا صومالي ذي الدجان أمالين وربط صوب حيد عداء ذو حنون بدن ما أنت سوي كده وأنت عيد عدوين كي هوري وأنا عداء ذو حنون بدن وكده عداء قبل كالشمال هذا دحين كاس الله جو حسوق معلمين دوكسية قرآن لكتا أو ذو إيتهاي داء وين كذي مركي ماليشيا هو بيسان أي رساس إلى دعان حلي أي كوكو الجيران سبع إسك قرآن ككريم كقول كي بكذب صلاة دي صبح maanta wararka ka imaanaya deegaana hoos yimaada degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxay sheegayaan ilaa 5 macallin oo kamid ah macallimiinta ugu waaweyn gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana dugsiyadooda Quraanka ay ku aflaxeen arday aad u tiro badan in lagu laayay deegaan hoos yimaada degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana xilligii la laynayay ay u fadhiyeen akhrinta subaxa Quraanka Kariimka ah waxaana la sheegay in macallimiinta ay ka kala yimaadeen deegaana ka kala tirsan gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo dugsiyo Quraan ay ku hayaan maleeshiyaadka manxayaasha ah isla markaana ujeedka ay ka lahaayeen dilka macallimiinta ilaa iyo hadda aan la garanin waxa la sheegay in si arxan darro ah isla markaana naxariista ka fog ay u laayeen macallimiintan dugsiyada Quraanka ku dhigaysay degmada Cadalle waa dugsiyada Quraanka ku dhigtay deegaana ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kula sugnayd waqtigii la laynayay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana sidoo kale la sheegay macallimiinta in shan kamid ah ay dhimatay laba kalena ay tahay dhaawac ayadoo aan la ogeyn sababta dhabta ee macallimiintan loo laayay in kastoo dadka qaar ay sheegayaan in macallimiinta loo laayay in arrimo ku aadan aana qabiil waxaase muhiim ah dhammaanteen inaan ka qayb qaadano in la soo qabto kooxahan manaxayaasha ah ee u bareeray inay dilaan macallimiintan dugsiyada Quraanka haysa dugsiyadoodana ay ka aflaxeen kumanaan arday ayna ka barteen kalaamka Ilaahay haddaba dhammaantiin muuqaalka sheer gareeyay si loo soo qabto kuwan dhagar qabiyaasha ah ee u bareeray in macallimiinta ay dilaan xilli ay ku guda jireen akhrinta qolkii eebe isla markaana ay u fadhiyeen subax macallimiinta la dilay waxa la kala dhihi jiray Allah u wada naxariistay macallin Sheekh Xasan waa macallin Sheekh Daahir حسن علي داري معلم محمود عنبورة معلم محمد حسين أحمد عدو معلم مختار عبد الله علمي iyo sidoo kale macallin aw maxamuud xasan cali dheere waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala amaantan aan ka baryeena in naxariistii janno ee baa u siiyo macallimiintan sida xaq darrada loo dilay salaadii subax kadib xilli ay ku guda jireen akhrinta Quraanka Kariimka isla markaana ay u fadhiyeen subax waxaana la sheegay laba kale macallimiinta inay dhaawacantay sida ay sheegayaan dadka deegaanka oo kamid ah waa dadka deegaanka waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda laakiin aysan jirin in la soo qabtay maleeshiyaadkii laayay macallimiintan ku guda jirtay akhrinta Quraanka Kariimka xilligii la laynayay inay u fadhiyay akhrinta subaxa Quraanka Kariimka waxaas ayaan darraa macallimiin dugsiyo Quraan dhigta isla markaana xilligii la laynayay u fadhisay akhrinta Quraanka Kariimka subaxna ku jirta in si bareer ah kooxdan manaxayaasha ah ee arxan laawayaasha inay laayaan waxaan dhammaanteen rabbi subhanahu wa ta'ala aan ka baryeena in macallimiintan naxariistii janno ee baa uu siiyo lana soo qabto kuwa dhagarta geysta ee cadowga ah una bareeray in macallimiinta si bareer ah ay u dilaan ayagoo odayaal ah kuwaasi waxay ila tahay inaysan dhaafeenin ummadda Soomaaliyeed isla markaana cid allaale cid ay rabaan ay laynayaan maadaama ay u bareereen macallimiin kitaabka Quraanka haysta Quraankana u fadhiyo subaxna ku jira inay laayaan